السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا يوتيوب كباركا 252 waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona kulan ka tirsan horyaalka liiga ay ciyaari doonta caawa haddaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saari si kusoo gaaraan muuqaaladina soo socda muuqaalkan share dhaha maasanidin tobabare Kikian CTM ayaa soo saaray liiska xidigaha kaga hortagi doona kooxda Sevilla kulan ka tirsan horyaalka liiga tobabaraha kooxda kubadda cagta Barcelona Kikian CTM ayaa soo saaray liiska xidigaha kaga hortagi doona kooxda Sevilla kulan ka tirsan toddobaadkii soddonaad ee horyaalka liiga tobabare Kikian CTM ayaa soo xushtay xidigaha kaga hortagi doona kooxda Sevilla caawa Jimcaha kulan ka tirsan horyaalka liiga waxaa liiskan ka maqan xidigaha Frenkie de Jong iyo Sergio Roberto kuwaas oo dhaawacyo kaga maqnaan doonaan kulanka caawa iyo Samuel Umtiti oo kanax ku seegi doona kulanka caawa laakiin waxaa liiskan kusoo laabtay xidiga daafaca uga ciyaara Barcelona Jordi Alba kaasoo ganax ku seegay kulankii Leganes ee Talaadadii Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Artur Melo, Suarez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Vidal, Firpo, Enrique Pena, Collado, Ansu Fati, Ronaldo Araujo shantii kulan u dambeysay ee wada ciyaareen Barcelona iyo Sevilla shan kamid ah waxaa badisay kooxda kubadda cagta Barcelona waa shantii kulan u dambeysay ee wada saarkaan Sevilla iyo Barcelona 5 jeer waxaa badisay kooxda Barcelona xogta kulanka caawa kulanka Barcelona vs Sevilla saacada ciyaarta la daawan doono waa 5 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika garoonka lagu ciyaari doono waa garoonka ee leedahay kooxda Sevilla Roman Sanchez shaxda macquulka ah laga yaabo inay ku soo gasho kooxda kubadda cagta Barcelona waa Stegen waa Semedo waa Piqué Lenglet Jordi Alba kadka dhexe waa Busquets waa Artur Melo waa Vidal waa Messi Griezmann Ansu Fati soo saadaale kulanka xiisaha badan Sevilla vs Barcelona caawa waxaa dhaawac ugu maqnaan doono Osama Dembele halka Umtiti oo ganax ku seegi doono intaan muuqaalka xiga soo arki doono sidaas iyo nabadgelyo